kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ka mid ah barnaamijyadeena tubta nabaddu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya. Waxaan ahay Faaiise Cabdi Warsame. aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Maxamed Diiriye. sanadkani barnaamijka tubta nabadda waxaan kaga hadalnay mowduucyo kala duwan oo muhiim u ah dadka Soomaaliyeed, shakhsiyaadka iyo kuwa go'aamada gaara. dhab ahaantii barnaamijyadani muhiim ayay u hayaan dhammaanteen. mowduucyadani waxaa ka mid ahaa kuwa ku saabsan xuquuqda aadanaha, awoodsiinta dhallinyarada iyo haweenka, ilaalinta carruurta, isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka, dhismaha nabadda, dowlad wanaagga iyo waxbarashada. aad iyo aad Cabdicasiis, mid ka mid ah mowduucyadii ugu muhiimsanaa ee aan baahinay waxaa ka mid ahaa awoodsiinta dhaqaalaha ee haweenka. mid ka mid ah barnaamijyadeena oo aan baahinay bishii January, Faadumo Sheekh Cali ayaa ka hadashay caqabadaha ay wajahayaan dumarka ganacsatada ah, gaar ahaan marka ay timaado helitaanka deymaha ay doonayaan inay ku bilaabaan ganacsiyada, maadaama ay inta badan adag yihiin shuruudaha maalgelinta bangiyadu. haweenka ganacsiyada ku jira caqabadaha haysto. caqabadaha mid waa mid guud oo wadanka oo dhan ka jirto, oo dhanka amniga, dhanka maaliyadda, dhanka wadooyinka way tiro badan tahay. laakiin wax hadda qaas haweenka ku ah oo ayada gaar macnaha haweenka u taabanaya waxaa ka mid ah dhanka oo maalgelinta iyo dhanka farsamada oo xirfadda. dhanka maalgelinta oo kaleeto hadday lacag maalgelin u baahdaan oo intay ganacsi abuurto qofkii juhdi soo gelisay, waqti soo gelisay, ganacsi socon karo oday, laakiin wixii uu ku dhaqaaqi lahay oo dhaqaale ah tabarteeda ay gaari weyso kale, meelaha oo deymanka laga helo kale caqabad ay ku tahay inay deyn soo qaataan, sababtoo shuruudaha bangiga ma buuxin karaan. haddii lacala ay buuxiyaanna damaanada dhib ku ah. haddii lacala damaanada xataa ay haysato xataa waxaa culays ku ah meesha ay lacagta kasoo celinayso qofka. waxaa la weydiinaya financial system, macnaha in oo maaliyadeeda dhaqaale ay si oo waadaxa ay tahay, mana awoodaan sababtoo ah xirfadaas bas haweenku kuma badno. qayb kale oo ka mid a barnaamijyadeenna waxaan uga hadalnay kala duwanaanta luuqadeed ee bulshada Soomaaliyeed. Professor Cabdalla Mansuur ayaana xasuusiyey in luuqaddu ay ka guda weyn tahay aalad lagu xiriiro oo keliya. waa haybteenna wuxuu sharaxay in kala duwanaanta luuqadeed ay kor u qaadi karto midnimada iyo wadajirka bulsho, iyo sida ay muhiimka u tahay in la dhowro luuqadahaasi si ay u gaaraan jiilasha soo socda. waa run, waa in ma aragtay la dhowraa kala duwanshaha afafka ka jira Soomaaliya. marka Soomaaliyana sida maaragtay aan ka warqabno hal afaa looga hadlaa oo af Soomaaliga ah. waxaa ka baxsan oo af Soomaali aan ahayn oo la hubo waxay tahay afka Jimini la yidhaahdo ama afka Bravo looga hadlo, waa magaalada Bravo looga hadlo, iyo Mushunguli afka la yidhaahdo oo isagana loogu hadlo dowlo ku taalo Jilib meelahaas, iyo af kaloo isagana Bajuni la yidhaahdo jasiiradaha Kismaayo iyo deegaano kooban. marka waa deegaano kooban waaye, waa afkoodan waa af baagti waaye. marka Soomaaliga lahjadihiisa 8 lahjadood kalay leeyihiin. lahjada in la respectay oo aanan la inkirin oo aan la dhihin bahasha maaragtay waxaas waaye lahjadaas waaye la xaqirin. waxaa sidoo kale jiray wada sheekeysi ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Garaad Cabdulaahi Cali oo ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ayaa ka hadlay caqabadaha deegaanka ee saameynaya Soomaaliya iyo tallaabooyinka ay qaadaysa dowladda Soomaaliya si looga dhigo wax ka qabashada deegaanka mid waarta. wuxuu ahaa barnaamijin xasuusinayay in ilaalinta deegaanka uu yahay mas'uuliyad saaran dhammaanteen. marka hadda waxyaabaha ugu badan oo wax ka qaban waxaa ka mid ah waxyaabaha dadka gacantooda ay ku keensadaan ay ka mid tahay in geedihii la jaro, dhirtii lala dagaalamo, ciidii la barakiciyo. waxaan bilownay waxa la dhahayo waxbarashada deegaanka, in hadda jiilka soo socdo in iskuulaadkii jaamacadihii laga fuliyo maadooyin la xiriira deegaanka, si qofkii u soo barto deegaanka faa'iidadiisa iyo dhibaatada ay leedahay haddii deegaanka dib lagu keeno. welina dhegeystayaal waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijka gaarka ah ee tubta nabadda.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan kooxda kalamaan oo inoo soo gudbinaysa majaajilo kooban oo ay uga hadlayaan mawduucyada kala duwan ee lagu soo bandhiga barnaamijka tubta nabadda. aryaadhaha kalamaan ee barnaamijka tubta nabadda ummadda Soomaaliyeed wuxuu ku baraarujiyaa tawfiiq iyo talo wanaagsan haddaan toosintooda iyo waanadoora qaadanana eebaago Soomaaliya meel khayr rahay gaari lahayd. nabadeey macaaney neecaw udgooney war bisla wali ka leeray nebedaanas la nuugale aryamadeeyo waxaa kaloo la yidhi how nabada oo la naaxiya nabeelagu naasakara nabada oo la naaxiya nabeelagu naasakara war bulshadu waxay ku wada noolaa kartaa nabad waxay ku wada noolaa kartaa inaan la isku xadgudbin waxay ku wada noolaa kartaa qof kasta xuquuqdiisa in la ilaaliyo waxayna ku midoobi kartaa ummaddu inay is walaashato cadaalad iyo garsoor ay ku kala baxdana ay hesho marka waxaan leeyahay allow Soomaali nabad allow sama iyo wanaag ku wiisahaydoo ka yeelsad iyo qayr looga dhigo colaadda allow ka saar ka suuli wixii dhib wada amiin allahayow wa amaanadaadi war kalamaan ee jiilka bulshada Soomaaliyeed ugu badan waa dhalinyarada barnaamijka tubta nabadduna wuxuu dhiirigeliyaa dhalinyarada haweenka iyo dhammaan bulshada rayidka inay kaalintooda qaataan waxaana lagama maarmaan ah inay door ku yeeshaan maamulka dalka dumarkana waa in la tixgeliyaa qoondadooda maadaama ay yihiin lafdhabarta bulshada war Soomaaliya hadday nabad hesho beeraheedana tabcato khayraadka badeeda yaalna soo saarato culayska dunidu nagu qabtana way ka qaadi lahayd waxaan dhihi lahaa dawarsiyo haddii aan la rabin dayra iyo tuugsi inta doomo waagi baryaba lala dulhay ahaabo dabashada malayga iyo badda lagu dareeraah dadka aan baryaynana dhulkay nolol ka dooneen innaga dambiga qayb laho daalka aan rabine daf haddaan niraayaan badan qabanna daabkeeda digir aan risayniyo ganley dagan ma weyneene daasadaha intaad naga dhigtaan dilay maqaamkeenna isku duubni muujiya faqrigu weyna daashaday aryaadhaha barnaamijka tubta nabadda wuxuu bulshada ku dhiirigeliyaa ma baahdo ninkii beer faashe aan beeraanno hanoo baxde ma baahdo ninkii beer faashe aan beeraanno hanoo baxde war waa sidaa u sheegteen tubta nabadda wuxuu bulshada ku baraarujiyaa dhalinyaradu inay wax bartaan tahriibkana joojiyaan waxaan oran lahaa tahriibka iyo dhuyaalka iyo badahan laga talaabayo saxarahan la sii tuman yihiin toorihi iyo qoodka tarabtarabta loo laanayo tica iyo hooga taqwad xumada lagu dhimanayo tacadiga muuqda taluukiya dhib mooye wanaag kuma tarayaane turaabtiisa meel looga wacan ruuxna tagi waaye dhulkaaga tog iyo waadi iyo tooma ka badane inaad tacabka soo saarata kaaga tala roone wax walbana tub loo sii mariyo toobiya jira tacliinta degdega waa cilmiga taransigiisii war anays warunta watii hore loo yiri waxbartaan barwaaqa gaadhne war gacmo wada jir bay wax ku gooyaane Soomaalidu hadday isbiirsato midowdo wax qabad u dhaqaaqdo dalkeenna ballaaran oo barwaaqada ee badhigay bulshada Soomaaliyeed hadday kala soo baxaan basaastiya ciilka iyo baryaha soo kama baxeen dadkiisa isbiirsado billaahi isdhaarsado ballama way gaarayaan bartii ay jecel yihiin war hoy maad baraarugtaan ballanteennu waa shaqo aad iyo aad ayay u mahadsan tahay kooxda kalamaan oo majaajilo xiise leh nala wadaagaysay dib ayaan kooxda ugu soo laaban doonaa balse dhegaystayaal barnaamijyada sanadkani aan kaga hadalnay barnaamijka tubta nabadda waxaa ka mid ahaa dhismaha nabadda oo wadubdhexaad u ahaa barnaamijyada aan baahinay sanadkani bishii juun ee sanadkani sheekh cabdulxayi oo ka mid a culummada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda dhismaha kalsoonida iyo nabadda ereyadiisu waxayna xasuusiyeen in nabaddu ay ka bilaabato bulshada qof kasta oo naga midana ay arrintaasi mas-uuliyad ka saaran tahay si loo gaaro nabad waartana loo baahan yahay isfaham wadahadal iyo isqadarin Soomaalidu dad cuqdad badan ma ahano waxaa ku filan in loo garaabo qofkii oo yiraahdo warniyow sanadii la soo dhaafay xaggayga dhib ayaa kaaga yimid waana ka xumahay dhibkaas ku gaaray waana xaal iyo xumeynaan ka bixinayaa naga raalli ahaada mar dambana ma soo noqonayso haddii isu garawshigaas la helo oo dadkii yani hoos laga soo bilaabo saas loo wada heshiisiyo waxay la tahay in kalsoonida ay soo dhismayso maxaa yeelay qofkii dhibaatadu ay gaadhay meel waxaa jirta ka danqanaysa oo boog ah oo uu dareemayo dhinaca kale inay u geysteen boogtaasi haddii boogtaas marka aan la daaweynin weli boogtii way bukaynaysaa korkana lagama dhaye hoos in loo galo ayaa fiican dadku markay dagaal sokeeyo u dhex maro dad qaali ah ayaa dagaalka sokeeyo ku baxa dagaalkaas sokeeyo dadkii ku baxay dadkii waxay maskaxdooda kaga tagtaa xusuus aad u xanuun badan xusuustaas marka in yani dadkii laga bogsiiyo oo dadku ay dareemaan in dib heshiisiin dhab ah la samaynayo
taas ayay la tahay in kalsoonida yani lagu dhisi karo. sidoo kale ilaalinta xuquuqda aadanaha ayaa ahayd mid mudnaan gaara la siiyey sanadkan oo dhan. bishii Oktoobar ee sanadkan, Cumar Cabdi Aadan oo ka socda isbahaysiga ilaalinta carruurta Soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyey muhiimadda ay leedahay in carruurta laga ilaaliyo colaadaha hubeysan iyo sida hay-adaha kala duwan ay isaga kaashan karaan xaqiijinta mustaqbalka Soomaaliya. inta badan waxaa u oleynaa oo xoog saarnaa sidii carruurta Soomaaliyeed ee u helayeen xuquuqda anagoo u mareyno in la ansixiyo ama la helo heshiisyada caalamiga ah iyo kuwa gobolka Afrika ah iyo kuwa dalka uu leeyahay inta badan u degan. waxaan ku guuleysanay inaan inta badan u oleyno in la sameeyo ama la bilaabo xuquuqaadka maxaa la sheegay heer maxaa la sheegay heer maxalli ah oo heer qaran ah oo ugu horeeyo axdiga loo yaqaan xuquuqda carruurta oo marka afqalaad lagu dhaho Child Rights Bill-ka oo inta badan anaga qayb weyn ku lahayn daraftigiisa koowaad inaan macnaha maxaa la sheegay hindisaas inaan qayb ka noqono. marka dadaalo badan jiro anaga wadno inta badan oo xoog saarayna sidii carruur Soomaaliyeed dhibaatooyinka loo geysan lahaa aan ugu ololeyn lahayn waxna ugu qaban lahayn. sanadkani sidoo kale waxaan xuquuqda dadka naafada ah kala sheekaysanay Adna Maxamed Maxamuud oo ka socotay hay-adda naafada qaranka. barnaamijkaasi wuxuu muujiyey sida ay muhiimka u tahay in lala dagaalamo takoorka iyo duudsiinta isla markaana la dhiso bulsho loo dhan yahay oo qof kasta uu ka faa'iidi karo taas oo loo marayo ka qaybgal kala duwanaan sharaf iyo horumar. saa ogtahay dadkeena waxaa waaye meel foga ka nimi marka maanta meel waqtigii hore la fiiriyo iyo hadda horta aad bay u kala duwan tahay taana waxaa lagu bedeli karaa isla wacyigelin badan in la sameeyo. maanta waxaa laga yaabaa hal famil walba inuu qof naafa u joogo marka sharci waxaa jira wadaa kula kaftama hadal ay Soomaalida dhahaan wixii casirka lagu arkay cishii lagu caaya marka waxyaabahaas oo kale inay Soomaalida iska bedelaan aad u jeclaan lahaa in wacyigelin badan la sameeyo lagu bedeli karaa in dadka naafada ah ayaga dadka aad u dhaxgalaan in ay dareensiiyaan naafanimada inaysan ahayn wax oo awood la'aana dadkana wacyigelin badan in loo sameeyo hadda sida hay'adda naafada qaranka ee wado kale wacyigelin badan gobolada laga sameeyaa dalka laga sameeyaa wacyigelinta in la xoojiyo inay dadkana iska ilaaliyaan waxyaabaha dadka takoorka aad inay uga ilaaliyaan aad wadankan ugu badan yahay insha Allah laakiin wacyigelin badan in la sameeyo rajaynayna si isku bedesho intaas qofka haduusan maskaxda naafa ka ahayn waxa waaye waxyaabo badan uu bedeli karaa waxa laga yaabaa maanta waxyaabo badan hadda isticmaalno ama waxyaabo badan ay dadka adeegsadaan dad naafa ah baa soo saaray oo istii lagu hayay gacmaha dhamaan naafa ka ah waxa rajaynayaa dadkeena inay sidii dunida kale loo dhiirigeliyo dadka naafada ah ilgooni baa lagu fiiriyaa aad baa loo dhiirigeliyaa marka waxyaabo badan ay sameyn karaan dadka naafada ah waliba too much wadankeena ugu baahan yahay waa dadka in sidii dadka kale loo adeegsanayo kale in loo adeegsado shaqooyinka in wax laga siiyo in mentalitygooda aad loo isticmaalaa oo la tijaabiyo dadka laga mid dhigo arjinaya. sheekooyinkani waxa ay muujiyaan mas'uuliyadda adkeysiga iyo dhiiranaanta wayna mideeyeen maadaama raadiyuhu uu yahay mid isku xira dadka abuuro wada hadal isla markaasna dhiirigeliya isbeddel wanaagsan. maadaama aan ku dhownahay gabagabada sanadkan waxaan abaal weyn u haynaa oo u mahadnaqaynaa dhegaystayaasheenna martideenna cid kasta oo wax nagu biirisay ee saaxiibada kala duwan codkiinna iyo kalsoonidiinna ayaa suuro geliyey guusha barnaamijka tubta nabadda. dhegaystayaal innagoo weli ku sii siqayna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka tubta nabadda waxaan jeclaan lahaa inaan iminkana dib ugu laabanno kooxda kalamaan oo inala wadaagaysa majaajilo ku saabsan muhiimadda ay leedahay nabaddu. wardalaba waa runtahay waxaan odhan lahaa geyiga ay nabadi taal ayaa lagu ganacsadaa guyiyo maa lagu dhaqdaa gurbeedkeeduna tarmaa aan wada guulaysanaya bulshada uguntada amniga. war bashiirow nabadda iyo xuquuqda aadanuhu kalama haraan midnimada iyo wax wada qabsiguna kalama haraan dhallinyarada iyo isboortiguna kalama haraan haweenka iyo naxariistuna kalama haraan hoggaanka wanaagsan iyo horumarka bulshaduna kalama haraan waxbarashada iyo waddada guushuna kalama haraan marka intaa markii la isku wada geeyo bulshadii ka wada shaqaysaa waa guulaysataa waxayna wada maraan tubta nabadda. aryaa waxaa soo dhan waxaa saldhigu ah midnimo kama maarante mayalkamuu adkay karna midnimo kama maarante mayalkamuu adkay karna ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa macbuudka koonka maamuulow kalama maarante miday macbuudka koonka maamuulow kalama maarante miday. innagoo ah bahda tubta nabadda waxaan idin leenahay waad ku mahadsantihiin safarka aad inala soo gasheen inta aan ku kulmayno waxaan idin leenahay sanadka cusub sidaas iyo nabad gelyo.